waxaa maanta jawi deganaansho ah laga dareemayaa suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo kadib kolkii maalintii shalay ahayd dagaal xooggan oo halkaasi ku dhex maray dhinacyo kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Diriirta ayaa timid kadib markii isku dhac uu dhex maray qaar ka mid ah ganacsatada suuqaasi, waxaana dagaalkii shalay dhacay uu ahaa mid waqti dheer qaatay isla markaasna sababay khasaare nafeed, iyadoo inta la xaqiijiyay dagaalkii shalay ay ku dhinteen 5 ruux halka tira inta ka badanna ay ku dhaawacmeen. Shaqadii shalay ka dhacday suuqa weyn ee Gaalkacyo ayaa ahayd mid gabaldhicii shalay iskeedu istaagtay, balse waxaa maanta degan guud ahaan jawiga magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo oo ahayd halkii ay fatantu ka abuurantay. waxaana dadaal xooggan wada mas'uuliyiinta maamulada Galmudug iyo Puntland iyo ganacsatada suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo, kuwaasi oo ay u soconayaan wada hadallo looga xaajoonayo wixii dhacay. walow ay maanta tahay maalinimo Jimco ah, haddana waxaa si caadi ah u shaqaynaya suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo iyo isu socodka gaadiidka iyo dadka oo ah mid jawi nabadgelyo ah ku soconaya. Mas'uuliyiinta iyo ganacsatada dadaalka wada oo Honkable TV la hadlay ayaa sheegay in arrinkaasi uu ahaa wax laga xumaado, isla markaasna ay hadda ku guda jiraan sidii ay u soo afjari lahaayeen soo noqosho ka timaada mar kale. magaalada Gaalkacyo oo halbowle ganacsi u ah gobolada dalka qaarkood ayaa waxaa ku soo noqda colaadaha markaasi dhex mara dadka wadadaga gobolka, waxaana xusid mudan in bila ka hor la sameeyay ciidamo isku dhafa oo ka kala socda maamulada Galmudug iyo Puntland, kuwaasi oo loo yagleelay ka shaqaynta nabadgelyada gobolka, waxayna ilaa iyo shalay ku hawlanaayeen daminta xiisadii ka kacday suuqa magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo qudhooda askar ka tirsan ciidamadaasi ay ku geeriyoodeen. ha yeeshee sasaanta laga dareemayo magaalada Gaalkacyo ayaa ah mid deganaansho ah, waxaana ay markaasi shacabka iyo qaybaha kalaba muujinayaan niyad wanaag ay ka qabaan xasilooni ka yagleelanta magaalada Gaalkacyo. Ali Maalin, telefishinka Honkable, Gaalkacyo.